kadib 5 maalmood uu xafiiska aqalka cad ee Mareykanka u fadhiyay madaxweyne Donald Trump ayaa soo saaray warqad uu ku amrayo in la bilaabo dhismaha darbiga xuduudda Mexico iyo Mareykanka u dhaxeeya. Waxa uu sidoo kale saxeexay in la qaado tallaabooyin dhaqaale oo lagu yareynayo magaalooyinka Mareykanka ay ku sugan yihiin dadka soo galootiga amba muhaajiriinta ee warqadaha sharciga aan haysan, balse aqalka cad ee wakiilada ayaa laga doonayaa inuu meel mariyo hanaanka iyo dhaqaalaha oo lagu qiyaasay inuu gaarayo balaayiin dollar. Mexico iyo Mareykanka iyo Trump ayaa isku haysta qorshaha darbiga. Mexico ayaa qeexaysa qaabka Trump uu la dhaqmayo dhismaha darbiga dhererkiisu dhan yahay 2,000 oo meel, wuxuuna ahaa mid uu ballan qaaday ballanqaadyadiisa ugu muhiimsan xilliga doorashada aqalka cad ku jiray madaxweyne Trump. Mexico ayaa bixinaysa qarashka darbiga. Waxa uu ka hadlayay munaasabad ka taagan xuduudda dhanka koonfureed ee Mareykanka iyo Mexico uu kala wadaago. Hadalkaasi wuxuu jeediyay xilli uu saxiixayay amarka. Waxa uu sidoo kale ka hadlay qaar ka mid ah ciidamada amniga gudaha dalka Mareykanka ka shaqeeya. Amarkan ayaa waxa qayb ka noqonaya la shaqaaleysiinaya 10,000 oo ciidamada amniga ee ku sugan dalka Mareykanka. Dal aan xuduud lahayn dal ma hayo, yiri Mr. Trump oo hadlayay. Laga bilaabo maanta Mareykanka waxa uu dib u soo ceshanaya maamulidda xuduudada. Madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in xiriirka Mexico kala dhaxeeyo uu wanaagsanaan doono. Madaxweynaha Mexico Enrique Pena Nieto ayaa la filayaa inuu booqdo aqalka cad ee Mareykanka si uu Trump ugala hadlo dhismaha darbiga amba miirka iyo hanaanka dalkiisa.